Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idil ahaantiinba kulanti wacan oo wanaagsan. Ummad walba oo koonkan ku nooli taariikh bay leedahay u gaara iyo dad ay xusto oo taariikhdooda baal weyn kaga jira. Ummadna ummad kale taariikh lama wadaagto. Sidaa aawadeed si ay ummaddaasi halyeygoodii u soo halgamay ama waxgaradkii wax ku soo kordhiyey u xusto ama si aanay u ilaawin, waxay isku daydaa inay taariikhdiisa xusto ama iskuulaadkooda ay ku dhigtaan ubadkoodu uga sheekayso. Balse Soomaali ahaan, marka aynu nahay ma cisayno ama taariikhba uma haysano inaynu baranno aqoon-yahankeenii, dhakhtarkeennii, sheekheennii wax inoo taray ama inuun bulshadan wax gashaday. Waxaan muuqaalkan iyo kuwa xiga insha Allah kaga hadli doonaa si aad hordhacaba ka aragtay barnaamij la magac baxay xasuusta kuwii xabaal galay, si aynu bal inuun u xasuusanno oo ayna taariikhdooduna u xabaalgelin. Muuqaalka koowaadna waxa aynu ku soo qaadan doonaa waa kuma Dr. Cumar Cusmaan Raabi, Alla naxariistii jannaha ka waraabiye. Magaalada Jabuuti ayuu ku dhashay 1946 oo la mataansan noloshiisa koritaan iyo dhalinyarnimo, isagoo noqonaya xeeldheere iyo cilmi baare. Waxaa lagu xukumay dil kadibna xabsi daa'im, isagoo lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa shirqool la doonayay in lagu dilo nin la oran jiray Cali Caarif Burhaan oo maamul maqaar sare ah Faransiisku ugu magacaabay xeebtii Soomaaliyeed ee uu guumaysanayay. Cumar Cusmaan Raabi, Alla naxariistii jannaha ka waraabiye, waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka qayb qaatay weerar lagu khaarajin lahaa Cali Caarif Burhaan 6dii Maarij 1968. Isla bishaas 27kii waxaa lagu xukumay dil. Bishii Noofembar 1968 ayaa dilkii loogu bedelay xabsi daa'im oo uu ku qaadanayay jeel ku yaal dalka Faransiiska. Waxaana isla sanadkaasba la geeyey xabsi lagu magacaabo Marat Detention Center. Intii uu xabsigaas ku jiray wuxuu shahaadada dhaktarka ka qaatay jaamacad ku taal magaalada Toulouse 1972, isagoo ka qalin jabiyey cilmiga filosofiga. Bishii Maaraj 1975, Cumar Cusmaan Raabi, isagoo weli xabsi ku jira, ayuu cutub ka mid ahaa dagaalyahanadii jabhaddii xoreynta xeebta Soomaaliyeed. Waxay afduubeen danjirihii Muqdisho u fadhiyey dowladda Faransiiska, kaasi oo lagu magacaabi jiray Ambassador Jim Guerry. Dhacdadaasi waxay ahayd mid dowladda Faransiiska ka gariirisay, waxaana afduubayaasha jabhadda dalbadeen in diyaarad looga qaado Muqdisho. Waxay kaloo dalbadeen in la geeyo halkii ay dalbadeen. Waxay kaloo ka digeen in aan la isku dayin in la weeraro, oo taasi noqon doonta danjiraha Faransiiska oo naftiisa waaya, kaas oo ay sii deyntiisa ku xireen kala bedelasho maxaabiistooda ku jiray jeelasha. Howlgalkaasi wuxuu ku soo dhammaaday in Dr. Cumar Cusmaan Raabi diyaarad looga soo qaado xabsigii, laguna bedesho danjirihii afduubnaa. Kala bedelashada oo ka dhacday dalka Yaman. Waxaa wadahadallada dhinaca dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa danjire Maxamed Saciid Samatar. Dr. Cumar Cusmaan Raabi 7 sano ayuu ku jiray xabsigaas. Wuxuu ka soo baxay isagoo halyey ah, shahaado ahaanna gaaray darajada PhD. Dr. Cumar Cusmaan Raabi markaas wuxuu marti u ahaa dowladda Soomaaliya, waxaana la dejiyey Hotel Juba ee magaalada Muqdisho. Gabar ka mid ahayd ardaydii kulliyadda luuqadaha kuwii xilliyadaas qalin jabiyey, waa Nuura Shire Cabdulle, ayaa sabab u ahayd xiriirinta Dr. Raabi iyo Cabdulqaadir Shire oo ay kulansiisay Hotel Juba. Kulanadaas waxaa ka soo dhex baxay muxaadaro lagu qabto kambaska kulliyadda Gahayr ee Jaamacadda Ummadda. Mawduuca muxaadaradu waa Geeska Afrika iyo 100kii sano ee ugu dambeeyey. Mawduucu wuxuu ahaa midkii ugu habboonaa oo cilmi baare iyo wadani uu jeedin lahaa xilligaas. Habeenkaas Agosto 1984.
dambeeyay waan ogtihiin mowqifkayga haddii ay u baahan tahay inaan idin xasuusiyo anigu Soomaaliyay weligay dagaal kulama gelin ama dagaal qabiili ha noqdo ama ku siyaasadeed ha noqdo ama ku kooxeed ha noqdo ama ku diineed ha noqdo laakiin anigu waxaan daba socday oo aan raadinayay oo horba isku dayay inaan idinka dhaadhiciyo waxa kulligiinba bartan idin ah ee giddigiinba aad wada baahan tihiin in lagama maarmaan u ah noloshiina marka la eego dad ahaan iyo bulsho ahaan iyo qaran ahaan ayaan muxuu ahaa ka hadlayay taasina waa danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd taasaan anigu ka shaqaynay weligeyna idinkama danaysin bimaana anu magaciyo mooro midna idinma weydiisa muxuu ahaa yani weliba mararka qaarkood anigu danahaygaaba Umar Cusmaan Raabi wuxuu halkaa ka jeediyey muxaadaro lagu tilmaamay in ay ahayd tii ugu sareysay tan iyo markii la abuuray jaamacadda ummadda sanadkii 1984 wuxuu ku beegnaa boqol guuradii ka soo wareegtay markii reer Berlin ku kala qaybsadeen Afrika iyo kala qaybintaasi sida loogu kala qaybiyay ummadii Soomaaliyeed iyo dhulkeedii qayb Faransiis ku qabsaday qayb Talyaani qabsaday qayb Britain qaadatay iyo Ethiopia oo qoondada wax ka heshay muxaadarada Dr. Raabi uu jeediyay waxaa dhageysanayay ugu yaraan 700 oo arday barayaashii jaamacadda iyo dadweyne kale waxaana cilmi baare Dr. Raabi uu soo bandhigay hankiisa sare iyo aragti dheeridiisa isagoo habeenkaas si cad u iftiimiyay in Soomaalidu ay halis ugu jirto in ay ku soo dhamaato iyadoo iska dhexesha xiidmaha mindhicirka Ethiopia waqtigaas kadib 1989 wuxuu qoray buugiisa Soomaaliyay halkeebaad ku socotaa wuxuuna saadaaliyay in jidkii lagu sii socday lagu tagi doono haadan damicii Abyssinia oo run noqdo Soomaalida oo ay liqdo Dr. Cusmaan Umar Raabi wuxuu qoray 6 buug oo ay ka kala mid ahaayeen Republic of Djibouti or Spare of Ethiopia oo la daabacay 1985 wuxuuna xilli uu Ottawa deganaa ka hirgeliyay urur u shaqeeya Soomaalida halkaas ku nool gacanna ka geysta waxbarashada ardayda ayuu ku geeriyooday magaalada Qaahira waxaana lagu aasay magaalada Djibouti lagama maarmaano intaasna inaad dhalato waad dhiman doontaa risiq baad u baahan tahay waad bukoon doontaa caynkan sida tan intaas oo kullu ilaahay baa waxsan qof shaqo kulliye ma jiro marka ka biqitaanka aan ka baqayna ka kale idanka kale wax loo weeraro aad ka baqaysaa waxbu ka qaadan waxbu kugu sameyn baad waaris waxba kuma hayo ka waxbu ku hayo ilaahay war ma jirto kullu ilaahay waa wuxuu kitaabku leeyahay la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wax awood ay leeyihiin qofku ma jirto illa ma sha Allah ilaahay deenu kugu soo sababo mooyaan marka Soomaalida intaasna aan waqtiga joogo ugu bishaareynaya waxaan leeyahay qaar baa ilaahay iska keen dhigay oo dhibaatada maanta beri horaan ka baxay Soomaaliyeed markaan madaxa la soo kacanaba dad baa inagu muuqora dhibaatada iyo dhooqada inagu muuqora oo diyaara oo doonay inaan dhimano laakiin ma dhimanayno nolosheena alla weyna waaxid baa haya 8,000 oo sano kan fadligiisa ku soo jirnay baan maantana ku baxaynaa hadii ilaahay ka dhigo marka intaasaan waqtiga maanta la maray idinku bishaareyn marka waxaan leeyahay murti waxaan leeyahay Soomaaliyeed waqtiga cusub yimid isku diyaariyo waqti cusub baa yimid oo soo dhow isku diyaariyo cafiya naftiin iyo Soomaali inteeda kale iska cafiya oo muxuu ahaa culays iyo xumaan weeyaan muxuu ahaa wixii lagu hay uurka lagu hay iska sii daayo oo muxuu ahaa hadda kadib hal la iska shado de maanta ma nin baa loo tilmaami waxa ka taagan Soomaaliya qof kasto oo Soomaaliya inuu wuxuu tari karay u taro oo ay ugu horeyso ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون وحا كستو وما يصيبنا إلا ما كتبنا الله وحي إلهي نقرأ بين قدعي أنت إلهي قرأنا دنتان وما أنت دي كده كل من يا دمر يا عرور يا رجوين وحا وليبا صومالي